بسم الله الرحمن الرحيم shacabka reer hargaysa waxay nagu soo foole maalin kale oo qiimo badan maalinaynu magaaladeena nadiifin jirnay maalin aynu gudan jirnay waajibka wadaniyadeed ayna saaran khamiis soo socota oo bishu tahay 26 waa maalintii aynu ugu talagalay ololaha nadiifinta magaalada hargaysa waa maalintii degmooyinku ay dhamaantood ka qayb qaadan jireen nadaafada iyo nadiifinta magaalada hargaysa waxaan filayaa maalinta khamiista qof waliba inuu doorkiisa qaadan doono oo kaga dhex qaadan doono degmadiisa iyo halka uu degan yahay nadiifinta magaalada waynu ku tartamaynaa degmo waliba waxay isku sameynaysaa isku tashi ku qotama dadka degmada degani inay gamcaha isqabsadaan oo ay ka qayb qaataan ololaha waxaan rajaynayaa in degmo waliba ay si weyn u soo baxdo qof waliba xilkiisa iyo waajibaadkiisa uu guto si markaa aynu u aragno degmooyinkeena oo nadiif ah degmo nadiif ah markaynu helana waxaynu heli doonaa magaalada hargeysa oo wada nadiif ah dadaalkaas ayaynu maalinta khamiista ka wada qayb qaadan doonaa dhammaanteen inaga oo isku duuban walaalo ah wada jirna oo gamcaha is haysana waxaan rajaynayaa in sida anaguba aanu u sugi kari laanahay maalinta khamiista in idinkuna sidaas oo kale u sugi kari laadihiin waayo maalin aad gudatay waajibka uu dalkaagu kugu leeyahay inaad dalkaaga u shaqayso ayaynu wada gudan doonaa insha allah oo aynu isugu soo bixi doonaa degmooyinkeena iyo xaafadaheena qofka inoogu yarna ee aan ololaha ka soo qayb gelin wuxuu qaban doonaa marka uu jidka marayo ayuu wixii ishiisu diida qaadi doonaa hooyaduna waxay xaadi doontaa ugu yaraan gurigeeda hortiisa guul baan inoo wada rajaynayaa waa inoo iyo khamiista iyo 26 bisha iyo magaalada hargeysa oo aynu wada nadiifino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalinta khamiista oo bishu tahay 26 bisha 8 2021 waxaa noo astaysan barnaamijkii ololaha nadaafadda caasimadda jamhuuriyadda somalilan muwaadin kasta iyo qof kasta oo reer hargeysa waxaan ku codsanaynaa inay maalinta ololaha nadaafadda ay nagala soo qayb galaan dhammaan shacabka reer hargeysa waxaan ku codsanaynaa inay mar labaad nagala soo qayb galaan oo barnaamijka ay nala wadaan sidoo kale qaybaha kala duwan ee dowladda ururada bulshada hay-adaha caalamiga ardayda iyo qof kasta oo ka qayb qaadan karaya waxaan ku codsanaynaa inay ka soo qayb galaan barnaamijka ololaha nadiifinta waxaan maanta ka codsanaynaa halkan maalinta khamiista ee bishu tahay 26 bisha 8 2021 inay tahay maalintii aynu u ballanay inaynu qabanno ololo ballaaran oo caasimadda oo dhan ka dhaca oo dadweynuhuna ay nagala qayb qaadanayaan iyo dhammaan shaqaale weynaha dowladda iyo maamulka dowladda hoose oo ugu horeeya maayarka caasimadda iyo golaha deegaanku waxaan idinku baaqaynaa inaa maalintaasi isa soo abaabushaan na garab istaagtaan waxaan ka codsanaynaa muwaadiniinta iyo bulshooyinka ku dhaqan caasimadda inay nagala qayb qaataan ololaha nadiifinta caasimadda oo ka dhici doona guud ahaan degmooyinka caasimadda kolley goobaha iyo degmooyinka maayarka ayaa faahfaahiyey kaasa haatee waxaan halkan anigu aan dul istaagayaa oo bulshadana ka codsanaynaa in aanay nagu soo saarin qashinkii ku jiray jadwalka qashinka xaafadaha ee ay shirkaduhu ay qaadaan kan waxaan ugu talagalnay inaynu ku nadiifino goobaha wadooyinka goobaha illegalka iyo qashinka meelaha filiqsan hase haatee qashinkii aynu xaafadaha ku haysanay ee ay kulleyba shirkadu naga qaadi lahayd ma aha inaynu macnihii aynu gaadiidka iyo wadooyinka aynu kusii culays kala sii saarno sidaas daraadeed dadka waxaan leenahay fadlan nagala qayb qaata ololaha nadaafadda caasimadda ee maalinta khamiista ah